السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada dhamaantiin asxaabta iyo ardayda meel kasta ku sugan tihiin. aad iyo aad ayaan idin salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. waxaad naga daawanaysaan oo aad nagala socotaan Kaabe Technology and Language YouTube channel Kaabe Technology and Language. sidoo kale waxaad nagala socotaan baraha bulshada kale Facebook page Kaabe Technology and Language iyo YouTube channel Kaabe Technology and Language. sidoo kale waxaad nagala socotaan Instagram Kaabe Technology and Language. soo dhawaada mar kale isu soo noqod wanaagsan. alxamdulillaah rabbil caalamiin. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan isugu soo laabano ama aan isugu soo noqonay mowduuceena shanaad ee casharadeenii imtixaanaha ahaa ee ku saabsanaa luqadda Ingiriiska. qaybtii cusbayd aan soo bilownay ee aan ku talagalnay inaan barbilow ilaa bardhamaad aynaan kala goyn aan dhammaystirno. idil ahaantiin meel kasta ku sugan tihiin kusoo dhawaada mowduuceena caawa. salaan dabadeed waxaan maanta caawa aan sii baran doonaa oo aan kusii socon doonaa mowduuceena shanaad qaybtii aan usoo bixinay interrogative pronoun-kii ama casharadeenii imtixaanaha ahaa ee aan usoo bixinay relative pronoun-ka aan usoo bixinay. waxaan kasoo qaadanay 5 cashar oo hore 4 cashar oo hore ayaan soo qaadanay oo aan soo dhamaystirnay. wad baan kasoo hadalnay oo aan soo dhamaystirnay. waxaan kasoo sameynay exampleski ahaa waxa weeyaan exampleskeedii qeexideedii baan kasoo hadalnay iyo waliba dialogue inaan kusoo sameynay iyadana oo qayb wada sheekaysi aan kusoo sameynay. soo kale waxaan kasoo hadalnay kii labaad oo ahaa where oo xagee ahaa ama relative pronoun-keena ka labaad oo where aan usoo qaadanay qeexideedii ayaan soo baranay isticmaalkeedii iyo sidoo kale waxaan soo baranay exampleskeedii iyo waliba dialogueskeedii ama conversationskeedii wada sheekaysigeedii. sidoo kale waxaan kasoo hadalnay oo aan soo baranay when ayaan kasoo hadalnay oo keenii saddexaad ahaa ayaan soo baranay oo aan qeexidiisii exampleskiisii isagana aan kasoo hadalnay. waxaan ku xijinay why oo iyadana aan soo baranay qeexideedii exampleskeedii iyo waliba qaybteedii converse-ka ahayd ama wada sheekaysiga ahayd. waaye caawa waxaan baranaynaa keena shanaad oo which ah ama kee ama tee ah ayaan baranaynaa. waa lesson 4 waa relative pronoun-kii waana lesson 5 cashka shanaad ayaan caawaan mowduuceena kusoo qaadanaynaa. mowduucyadana aad iyo aad ayay muhiim yihiin oo sababtaan ugu celinayno oo aan waxaweyaan waqtiga u gelinayno aan usoo diyaarinayno wax kale maaha. waa muhiimadda ay leeyihiin iyo qaabka loo isticmaalo. haddaad luqadda fahansan tahay waad fahmaysaa ama waad fahmi kartaa waad garan kartaa isticmaalka ay leeyihiin relative pronoun-ku inay aad iyo aad tahay. dhammaantiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay asxaabta cusub ee channelka soo galay. waxaan dhawaan kusoo biiray. waxaan leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan ayaan idinku soo dhaweynayaa. channelkan waxaa ka baranaysaan luqadda qaybaheeda kala duwan ayu nooc kasta doonayso waad ka helaysaa. qaybta wada sheekaysiga haddaad u baahan tahay waad ka helaysaa. topicska iyo waxaweyaan passageska haddaad u baahan tahay waad ka helaysaa. qaybta dialogueska haddaad u baahan tahay waad naga helaysaa. sidoo kale qaybtii grammarka laftirkeedu kama maqna. labadii qayboodba 8 parts of speech-kii iyo waliba 12 tenses-kii intaba waan kasoo hadalnay oo channelka ayay ku jiraan. sidoo kale mowduucyadan aan dhawaan soo bilownay waxaa la yidhahdaa interrogative pronoun ama relative pronoun ayaa la yidhahdaa. markaasoo mowduucyadan aad iyo aad ayay u muhiim yihiin. haddii aanad kuwii hore aanad soo daawan aanad weli daawan fadlan daawo saad kuwana aad noola jaan qaado. waa mahadsantihiin idil ahaantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan. waxaan idinka codsanayaa inaad videoga like garaysaan. sidoo kale waxaweyaan haddaydan waxaweyaan hore noogu subscribe garaynin channelka inaad noo subscribe garaysaan. sidoo kale asxaabtiinana aad la wadaagtaan. intaas dhiirigelin ayay annagana noo noqonaysaa adigana hawl kuguma hayso. marka intaa inoo samey insha allah. intaynaan mowduuceena bilaabin fadlan mowduucan inoo like garay oo waxaweyaan like-ta ku qabo. waa mahadsantihiin mar kale soo dhawaada asxaabta. magacaygu waa Sharmaarka Caraale Jaamac. alaaba waxaan idinla socodsiiyaa barashada luqadda Ingiriiska qaybaheeda kala duwan. caawa waxaan idinku soo talagalay mowduuca which ayaan soo qaadanay. which waxa macnaheedu waxa weeye kee ama tee ayaa loo isticmaalayaa. waa asetingi ashyaada ayaa loo isticmaalayaa. ase materialka ayaa loo isticmaalayaa. waa lesson 5 waa cashka shanaad ayaan usoo qaadanay kee ama tee. sidoo kale waxaan baran doonaa waxaweyaan isticmaalkeeda qeexideeda iyo waliba example-keeda oo waxaan leenahay what is used maxaa loo isticmaalaa which maxaa loo isticmaalaa which
which maxaa loo isticmaalaa intaynaan bilaabin mawduuca fadlan mawduuca la garay which maxaa loo isticmaalaa maadaama meaningkii iyo macnaheedii aan baranay waxaan sidoo kale baranaynaa isticmaalkeeda waxaa loo isticmaalaa asking weydiin questions su'aalo information ama warbixin laga keenayo or ama talk hadal ku saabsan abood ku saabsan choice-kaaga ku saabsan ama waxa loo yaqaan doorasho ku saabsan macnaha waxa weeyaan adiga choice-kaaga waxyaabo ku saabsan laba walxood la isku ka barbardhigaya labada walxood ayaa lagu weydiinaya marka qeexideeda aan qeexayno ama meaningkeeda aan waxa weeyaan full meaning aan sameynayno definition waxaan leenahay waa asking waa weydiin question su'aalo information warbixin ama talk hadal abood ku saabsan choice waxa weeyaan doorasho ku saabsan waan soo gaabin karnaa waxaan leenahay waa asking weydiin question su'aalo abood ku saabsan choice waxa weeyaan doorasho ku saabsan waa option-keena saddexaad waa option-keena shanaad ayaan leenahay so marka exampleska ayaan ku sii soconaynaa qeexideedii wata ku soo dhawaada exampleskana examples tusaalayaal abood ku saabsan which ku saabsan marka hore waan wada akhrinaynaa markaasaan ku soo celin doonaa meaningka iyo macnaha tusaale ahaan waxaan usoo qaadanay which intan oo dhan ayaan usoo qaadanay si aad exampleka which aad u fahanto ama isticmaalka which qaabka loo isticmaalayo oo aad adiguna kuwa kale uga samaysan karto tusaale ahaan waxaan leenahay which subject maadadee ayaad dhiyo adigu learn aad dhigataa which subject do you learn maadadee ayaad dhigataa which faculty do you learn fakalkee ayaad dhigataa which subject maadadee ayaad dhiyo adigu interest aad xiisaysaa which subject do you learn which subject do you interest which religion do you believe which religion do you believe which religion do you have which village do you reside which village do you reside which region were you born which region were you born which language do you speak which language do you speak which region do you live in which region do you live in which district do you reside which district do you reside which country do you grow up which country do you grow up which school do you learn something which school do you learn something which is better education and ignorance which is better education and ignorance which is better for you to live in a war or to live in a peace which is better for you to live in a war or to live in a peace which is better for you to be educated person or ignorant person which is better for you to be educated person or ignorant person aan dib ugu soo celino waxaan leenahay examples tusaalayaal which subject do you learn maadadee ayaad dhigataa which subject maadadee ayaad dhiyo adigu learn aad dhigataa which subject maadadee baad dhiyo adigu interest aad xiisaysaa which religion diinteebaad do you believe aad aaminsan tahay ama rumaysan tahay which religion diinteebaad dhiyo have aad haysataa which village xaafadee ayaad dhiyo reside aad degan tahay which region gobolkee ayaad were you born aad ku dhalatay which language luqadeebaad do you speak aad ku hadashaa which region gobolkeebaad do you live in aad ku nooshahay which district degmadeebaad do you reside aad degan tahay which country gobolkee dalkeebaad do you grow up aad ku soo barbaartay oo aad ku soo kortay which schoolkeebaad do you learn aad ka dhigataa something aad wax ka dhigataa ama aad wax ka barataa which is better kee fiican education waxbarashada and ignorance iyo jaahilnimada keebaa fiican which is better kee kuu fiican for you adiga to live inaad ku noolaato in a war dagaal dhexdiisa inaad ku noolaato or ama to live inaad ku noolaato in a peace nabad dhexdeeda inaad ku noolaato which is better for you kee kuu fiican adiga to live inaad ku noolaato in a war dagaalka dhexdiisa or ama to live inaad ku noolaato in a peace nabadda dhexdeeda labadaa kee kuu fiican which is better kee kuu fiican for you adiga to be inaad noqoto educated person qof aqoon-yahana or ama inaad noqoto ignorant person qof jaahila inaad noqoto labadaana which is better for you kee kuu fiican labadaa waxaan ku guda jirnaa mawduuca shanaad ama waxa weeyaan cashka shanaad ee casharadeenii taxanaha ahaa ee interrogative pronoun-ka ahaa waxaan baranaynaa optionka shanaad oo ah which kee ama tee isticmaalkeedii
qayxideedii iyo exampleskeedii ayaan halkan ku baranay. waan ku sii socodsiinaynaa oo waxaan baran doonaa qaybtii waxa weeyaan dialogue ahayd ama qaybtii wada sheekaysiga ahayd ama qaybtii questions and answers ka ahayd ee ku soo dhawaada iyadana mar kale saaxiibayaal. dhammaan mowduucyada tani aad iyo aad ayay u muhiim yihiin. fadlan haddaanad channelkaanad ku soo biirinin waxaan kaa codsanayaa inaad channelka ku soo biirto oo aad noo soo subscribe garayso. sidoo kale waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad mowduuca aad like garayso si asxaab badan u gaadho. sidoo kale waxa weeyaan inaad Facebook iyo Instagramna aad naga soo follow garayso. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, sharafi korkaaga ha ahaato. intaas ayaa dhiirigelin bay noo tahay, adigana hawl kuguma hayso. waan ku sii socodsiinaynaa oo waxaan baranaynaa iminka as a dialogue, as a conversation baan u baranaynaa, wada sheekaysi ahaan ayaan u baranaynaa. oo questions and answers keena ayaan waxaan ku baran doonaa iminkana qayb wada sheekaysiya. which waxaan meaningkeedii waan ka soo hadalnay waa kee ama tee, waa lesson 5. iminka su'aalihii iyo jawaabihii ayaan israacsiin doonaaye soo dhawaada saxaabey, mar kale ku soo dhawaada isla mowduuceena maanta. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay kusoo biiridaada, dhegaysashada mowduucan aad dhegaysatay iyo sida quruxda badan ee aad u laygaraysay iyo sida quruxda badan aad noola socoto waan kaaga mahad celinaynaa. waayo waan kusii socodsiinaynaa. waxaan leenahay which subject maadadeebaad do learn aad dhigataa. which subject do you learn maadadee ayaad dhigataa. anigu learn waxaan dhigtaa English language, luqadda Englishka, and maths iyo waliba xisaabta. anigu learn waxaan dhigtaa English Ingiriisida and maths iyo waliba xisaabta ayaan dhigtaa. waayo waan kusii socodsiinaynaa. which region gobolkeebaad were you born aad ku dhalatay. which region were you born gobolkee ayaad ku dhalatay. which ayaan isticmaalaynaa. anigu was born waxaan ku dhashay in a Sanaag region, gobolka Sanaag ayaan ku dhashay. I was born waxaan ku dhashay in a Sanaag region, gobolka Sanaag ayaan ku dhashay. which language luqadeebaad do you learn aad dhigataa. I learn waxaan dhigtaa English language, luqadda Englishka, and maths iyo waliba xisaabta. which region gobolkeebaad were you born aad ku dhalatay. anigu was born waxaan ku dhashay in a Sanaag region, gobolka Sanaag ayaan ku dhashay. which subject maadadeebaad do you adigu interest aad xiisaysaa. because of you learn many languages, luqado badan ayaad dhigataa. so which subject do you interest maadadee ayaad xiisaysaa. anigu interest waxaan xiiseeyaa English language, luqadda Englishka ayaan xiiseeyaa. because of sababtu waxa weeye aan Englishta u xiiseeyo, English Ingiriisidu is waxa weeye international language, waa luqad caalami ah that used all over the world, taasoo laga isticmaalo adduunyada oo dhan. marka that's why I interest English language, taasina waa sababtaan u xiiseynayo luqadda Englishka. waayo waa kusii soconaynaa. which religion diinteebaad. marka ereyga religion iyo ereyga region way isku soo dhow yihiin, labada kelmadood iyo iskaga ka khaldamin, midna waa diin midna waa gobol. marka which religion diinteebaad do you believe aad rumaysan tahay, aaminsan tahay. anigu belief waxaan aaminsanahay in Islamic religion, diinta Islaamka ayaan aaminsanahay. which ama rumaysanahay. which village xaafadeebaad do you reside aad degan tahay. anigu reside waxaan deganahay in xaafad Soomaal village, xaafad la yiraahdo xaafad Soomaal village ayaan deganahay. holwadaag village waad dhihi kartaa waad deganahay, iyo waliba xaafadihiina waad ku bedelan kartaa. which region gobolkeebaad do you live aad ku nooshahay. haddaa la garanba mayne gobolkaad ku nooshahay. which region gobolkeebaad do you live in aad ku nooshahay. anigu live in waxaan ku noolahay Togdheer region, gobolka Togdheer ayaan waxa weeyaan ku noolahay. which is better kee fiican English Ingiriisida and Arabic iyo Carabida. which is better kee fiican Carabidu is better than way ka fiican tahay English Ingiriisida waxaa ka fiican Carabida. because of the Holy Quran written on quraanka barakaysan ayaa ku qoran luqadda Carabida. so marka Arabic is better than English, Carabida ayaa ka fiican Englishta. which district degmadeebaad do you stay aad joogtaa. which district do you stay degmadee ayaad joogtaa. anigu stay waxaan joogaa in Ceergaabo district, degmada Ceergaabo ayaan joogaa. which is better kee fiican education waxbarashada
and ignorance iyo waliba jaahilnimada. Education waxbarashadu is better than way ka fiican tahay ignorance jaahilnimada way ka fiican tahay waxbarashada ayaa ka fiican jaahilnimada. Waayo waan ku soconaynaa which country wadankeebaad were you born aad ku kortay were you born aad ku dhalatay ayaan leenahay which country wadankeebaad were you born aad ku dhalatay. Anigu was born waxaan ku dhashay in Somaliland country wadanka Somaliland ayaan ku dhashay. Which college keebaad do you learn something aad wax ka dhigataa ama aad wax ka barataa. Anigu learn waxaan wax ka bartaa something aan wax ka bartaa in Kaabe Tag college ayaan wax ka dhigtaa. Kaabe Tag college Kaabe technology college ayaan wax ka bartaa. Which is better kee ku fiican for you adiga to be inaad noqoto educated person qof aqoon-yahana inaad noqoto or ama ignorance person qof jaahila inaad noqoto. Which is better for you kee ku fiican labada adiga. Which is better kee ku fiican for you adiga to be inaad noqoto educated person qof aqoon-yahana or ama to be inaad noqoto ignorant person qof jaahila kee ku fiican. It is better waxay fiican for me aniga to be inaad noqdo educated person qof aqoon-yahana inaad noqdo ayaa ii fiican. Waayo which is better kee ku fiican for you adiga to live inaad ku noolaato in a war dagaalka dhexdiisa meesha dagaalku ka dhacayo inaad ku noolaato or ama to live inaad ku noolaato in a peace meesha ay nabadu ka jirto ee aanusan dagaal ka jirin labadaana. Which is better for you kee ku fiican adiga. It is better waxay fiican for me aniga to live inaan ku noolaado in a peace nabada dhexdeeda inaan iskaga noolaado ayaa ii fiican. Because maxaa yeelay ama because of sababtu waxa weeye peace nabadu bringi waxay keentaa progress horumar ayay keentaa and prosperity iyo barwaaqo ayay keentaa. While halka the war dagaalku bring uu keeno death dhimasho and destruction iyo waliba burbur iyo barakac uu keeno dagaalku. It is better waxay fiican for me aniga to live inaan ku noolaado in a peace nabad dhexdeeda because of sababtu waxa weeye peace nabadu bring waxay keentaa progress horumar and prosperity barwaaqo and abundance iyo nimco ayay keentaa. While halka the war dagaalku bring uu keeno death dhimasho and destruction iyo waliba burbur iyo barakac uu keeno. Waayahay which language luqadeebaad do you speak aad ku hadashaa. Which language do you speak luqadee ayaad ku hadashaa. I speak waxaan ku hadlaa Somali language luqada Soomaaliga ayaan ku hadlaa. Which language luqadeebaad do you learn aad dhigataa. Which language do you learn luqadee ayaad dhigataa. I learn waxaan dhigtaa English Ingiriisida and my mother tongue iyo waliba afkayga hooyo ama luqadayda hooyo ayaan dhigtaa. Which language luqadeebaad do you learn aad dhigataa. I learn waxaan dhigtaa English Ingiriisida and my mother tongue iyo waliba afkayga hooyo ayaan dhigtaa. Which language luqadeebaad would you adigu prefer aad door bidaysaa to learn inaad barato hadda luqadee ayaa door bidaysaa. Anigu would like waxaan jeclahay or ama to prefer aan door bidayaa Arabic language inaan barto luqada Carabiga ayaan door bidayaa ama aan jeclahay. English tan markuu celinaynaa ee la socod wanaagsan. Which subject do you learn. I learn English and Maths. Which region were you born. I was born in a Zanag region. Which subject do you interest. I interest the English language because of English is international language that used all over the world. Which religion do you believe in. Which religion do you have. Nawaan dhihi karaa I believe in Islamic religion. Which village do you reside. I reside in Hafad Somali village. Which region do you live in. I live in Togdel region. Which is better English and Arabic. It is English is better than Arabic is better than English. Which district do you stay. I stay in Argabo district. Which is better education and ignorance. Education is better than ignorance. Which country were you born. I was born in Somaliland country. Which college do you learn something. I learn something in a Kaabe technology and language. Which is better for you to be educated person or ignorant person. It is better for me to be educated person. Which is better for you to live in a war or to live in a peace. It is better for me to live in a peace because of peace bringing progress and prosperity and opulence, while the war bringing death and destruction. Which language do you speak. I speak Somali language. Which language do you learn. I learn English and my mother tongue. Which language would you prefer to learn. I
would like or to prefer Arabic language. inshallah waan rajeynayaa inaad mawduucan aad wax badan aad ka fahantay ama aad wax badan aad ku baratay. fadlan haddaad mawduucan aad wax ka fahantay ama aad wax ku baratay aanad aqoonin, fadlan mawduuca la galay oo waxa weeyaan asxaabtaadana la wadaag. sidoo kale waxa weeyaan asxaabay waxaan bixinaa online courses ama koorsooyin waxa weeyaan online lagu dhiganayo si joogto ah loo dhigto oo buugtooda iyo shahaadooyinkooda iyo nidaamkooda oo dhan wata. soo markaa waad ku soo biiri kartaa haddii aad arinta aad danaynayso. haddii kale waxaanu ka codsanaynaa bartaadanba nagala soco, laakiinse mawduuca waxa weeyaan la garay oo waxa weeyaan asxaabtaadana la wadaag. sidoo kale waxa weeyaan channelkana dee share garay, Facebook iyo Instagramna dee naga soo booqo noo soo like garay. dhammaantiin aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin. waxa weeyaan idinkaana waxa idinku nahay idinka meelna geyn kara, fadlan inaad kor noo soo qaadaan ayaan jecelnahay. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. intaan mawduucayga isugu iman doono waa Sharmaarka Caraale Jaamac, waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. intaan isugu imanayno mawduuc ka xiiso badan waxaan idin leeyahay isma dhaafno. wabilaahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.